sagaashan cisho ayaa ka hartay sanada 2024 in ay noqoto 2025 kaliya waxa ka hartay 9 maalmood. 9 cisho ama 9 maalmood waa waqtiga ugu haboon ee aad kaga taqalusi karto dhammaan caadooyinka xun ee noloshaada burburiyay, sidoo kale aad ku abuuri karto caadooyin wanaagsan. yani waxaad oga tagi kartaa ama aad oga taqalusi kartaa dhammaan caadooyinka xun. waa mid koowaad haddii aad ku saladan tahay ama aad ku dhiban tahay daawashada aflaamta xun. 9 cisho waa 9 cisho ee aad oga taqalusi lahayd. waa mid labaad procrastinate ama dib u dhigida hawlahaaga. in aad hawlahaaga dib u dhigto, inaad dhahdo bari ayaad sameynaysaa, inaad dhahdo bari ayaad bilaabaysaa. ka tagida salaada. yes, waxaa jira dad maaragtay ku dhiban in ay salaada ka tagto. waxaa jira dad ku dhiban in ay maintain gareeyaan ama ay joogteeyaan in ay tukadaan maalin kasto 5 waqti. yani waxa laga yaabaa maalintii oo dhan inuu 2 salaadood ka tukado. yani hala yaabin, waxaa jira dad noocaas ah. so waa waqtigii aad sidoo kale aad caadadaas xun aad oga taqalusi lahayd. waa major problem. yani waa dhibaato aad u weyn tan. yani wax la yareysan kara maahan. waa mid afraad gamingka. of course qof kasto yani u dheeli karaa game. yani sometimes waqti waad ku qaadan kartaa, laakiin inaad waqtigaaga inta ugu badan oo gabi ahaantiisa aad geliso gaming inaad deesho, yani waa arrin laga fiican yahay. so 9 cisho waa waqtigii ugu haboonaa ee aad uga taqalusi lahayd dhammaan caado kasta oo xun oo aad ku dhiban tahay. waxaa jira dad ku dhiban caadooyin kala duwan. waad garan kartaa markii aan ku leeyahay caado xun, adigaba nafsadaada waad ogaan kartaa ama maskaxdaada waxa ugu horeeya kusoo dhacayo waa arinta aad ku dhiban tahay. waa arinta aad maaragtay aad la ildaran tahay. waa arinta aad mar kasto subax kasto oo soo kacdo is leedahay haye goormeed waxaan joojin doontaa. mararka qaar waxaa laga yaabaa in aadan aqoonsaneyn ama aadan weli garowsanin waxa ay tahay caadada xun ee aad ku dhiban tahay, because weli kuma saameynin. markay ku saameyso oo ay dhibaato kuu geysato oo maaragtay noloshaada ay ciriiri gasho, ayaad dareemi doontaa in ay jirto caado xun oo aad ku dhiban tahay. hadda naftaada dib u qiimee, ogowa caadada xun ee dhibaatada kugu haysa. waxaad haysataa 9 maalin dhammaan sanadkan oo idil wixii aad xaqiijin weysay waa inaad ku xaqiijisaa 9 cisho ee soo socoto. isku day in aad kaga taqalusto dhammaan caadooyinka xun. waa waqtigii aad ka taqalusi lahayd daawashada aflaamta xun. waa waqtigii aad ka tegi lahayd 9 cisho. yani waxaa jira dad ka sameeya muuqaalo qaabka ugu haboon ee aad uga tegi karto muuqaaladaasi baar. yani waxyaalo badan oo maaragtay waxaa jiro aad uga taqalusi karto. so muuqaaladaasi raac, raadi, baar. so 9 cisho waa inaad focus ka saartaa sidii aad uga taqalusi lahayd arrintaasi. midda labaad, ka taqalusida dib u dhiga hawlahaaga. waa wax aad u xun in aad yani la qabsato inaad dib u dhigto hawlahaaga. inaad dhahdo bari aad samey waqti xaadirkan aan kula hadlaayo waxaan kuleeyahay 9 cisho ku hartay. so haddii aadan bilaabin ka tagida ama ka taqalusida arrimahan oo aad dhahdo bari ayaad bilaabaysaa ama bari dambe ayaad bilaabaysaa, haddii bari la gaaro ama bari dambe la gaaro 88 maalin 88 cisho 89 cisho ayay noqonaysaa. 9 cisho meesha ka dhaqaaqaya kuma taagnaanayo. yani waxaad arkaysaa ayadoo lagu leeyahay 7 bari ayaa ka hartay sanadka cusub. so 9 cisho halkaas aad kusoo baldareysay. so ka taqalusida arrintan hadda faraha kala bax. waxyaalahan aad hayso oo dhan gebi ahaan waqti xaadirkan aan kula hadlayo faraha kala bax. waa inaad beddelka hadirtan bilowdaa. mid saddexaad doonayso inaad ka taqalusto ka tagida salaada, waa inaad hadda joojisaa. waa inaad naftaada ku qasabtaa inay maintain garayso tukashada 5 waqti ee salaada. haddii aad ku dhiban tahay arrintaasi, waa waqtiga ugu haboonaa ee aad joojin lahayd. gamingka waa waqtigii ugu haboonaa ee aad naftaada u sheegi lahayd inay qaangaartay. ma ahan waqtigii ay gaming waqti aad u fara badan ay ku bixin lahayd naftaada. in aad barto xirfad cusub waa caadooyinka wanaagsan ee aad kusoo kordhin karto naftaada 9 cisho ee ka harsan sanadka. yani waa mid kamid ah caadooyinka ugu wanaagsan ee aad naftaada bari karto 9 cisho. soo baro xirfad cusub oo kusoo kordhi naftaada xirfad cusub. inaad hormariso luqadaada Englishka oo aad focus garayso qaabkii aad ugu hadli lahayd, muhiimada iyo ahmiyadda ee leedahay luqada Englishka. yani waxaan uga soo hadalnay muuqaalo aad u fara badan. muuqaaladaasi soo daabo. ma doonayo muuqaalkan inaan hadana waqti kale aan ku geliyo muhiimadaas ay leedahay, laakiin muhiimada ay leedahay adiga bood ogtahay. so in aad hormariso luqadaada Englishka waa caado wanaagsan oo aad ku abuuri karto 9 cisho. sidoo kale inaad bilowdo wixii sanadkan oo dhan aad dib u dhigaysay waa inaad hadda bilowdaa. 9 cisho waa inaad ku gaartaa oo aad ku xaqiijisaa dhammaan guulihii aad sanadkan oo idil aad soo xaqiijin weysay. muuqaalkan kaliya waxaan rabay inaan kugu xasuusiyo in ay hartay 9 cisho. muuqaalkan waxaan dhihi karaa waa alert, yani inay hartay 9 cisho oo kaliya sanadkii oo idil.
so dhammaan wixii aad ku xaqiijin weysay sanadkan oo dhan 90 kan cisho aad ku xaqiijin kartaa waa 3 bilood waa 90 days so maanta haddii aan ka saarno tomorrow 89 days 88 days 87 days so way soconaysaa kuma istaagayso so bari waxaad arki doontaa iyadoo lagu leeyahay 3 bari kadib ama bari toole ama 24 saac kadib waa 25 ama 25 aad u dhex taaganayda ayaad arki kartaa so try to eliminate these bad habits from your life isku day inaad naftaada ka taqalusto dhammaan waxyaalahan xunxun ee ku dhiban tahay sidoo kale inaad abuurto caadooyin wanaagsan sida inaad xirfad barato inaad naftaada horumariso inaad bilowdo inaad luqadda Ingiriiska horumariso inaad maaragtay dhammaan waxyaalihi aad dib u soo dhigaysay aad raydina bilowdo oo maaragtay aad hadeertaani aad xaqiijiso oo aad kaga faa'iideysato 90 kan cisho waxaan ka codsanayaa inaad kanaal ku soo birto ama ugu yaraan hal qof oo saxaabtaada kamid ah aad la wadaagto muuqaalkana like ta kilmaamin ku raaxayso noloshaada. Assalaamu calaykum.